gudoomiyaha gobolka Sare Ibrahim Xaaji Xasan Cali iyo gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Caynaba Mudane Khaliif Ismaaciil Salabaan ayaa maanta si wada jir ah u dhagax dhigay dhismayaal cusub oo lagu korinayo maxadka Cumar bin Khadaab oo kamid ah dugsiyada gaarka loo leeyahay ee ka jira degmada Caynaba ee xarunta gobolka Sare sidoo kalena waxay mas'uuliyiintan dhagax dhigeen dhismo cusub oo isna dugsi sare ah oo maxad ah isla markaana loogu magac daray Allah u naxariistay Macallin Xirsi Axmed oo kamid ahaa culimadii waaweyn ee deegaanka gobolka Sare munaasabadani ayaa waxa ka soo qayb galay mas'uuliyiin kala duwan oo isugu jiray علماء الدين مدح dhaqameed maamulka iyo gudida dugsigan iyo dadweyne kale ugu horeen waxa munaasabadani dhagax dhiga ka hadlay Sheekh Maxamed Shirad Qare oo kamid ah culimada waaweyn ee gobolka Sare ahna gudoomiyaha gudida maamusha maxadkan Cumar bin Khadaab waxaana ugu horeen ba mahadnaq aad u balaan halkaas uga soo jeediyay jaaliyada Australia ee gobolkan ka soo jeeda waxaanu jaaliyadaha kale ee gobolka ka soo jeeda u soo jeediyay inay gacan maanta ka geystaan hirgelinta dugsigan sare isla markaana ay kala soo xidhaan telefoonada shaashada ka muuqda laba qol oo ka dhinaa lagu dhagax dhigayo إن شاء الله تعالى وحن رجينا إنه اسمه دور قضاء بان كهاليا تذكر أول شيء تبدأ أول شوجا تبدأ شوجا أول شيء قبل كان هنا ينا كسر قيب قاتان أيان رجينا مارتي وحسب مودن مهد شاليد استراليا أو مركي هورا قيب تهور اللي سينا نقل قيب قاتي أولي بالعكس تقول إنسان كبير صادرتي ما أنت أنا صاح استيو ينا صادرتي وحصادرتي ماركتي عن $1 نو صادرتي إن شاء الله تعالى وأدركتم ودكسي هو سدحة تذكر دكتة العقل جمع قاضي وبلاش أردد وبلاش فالله قد قال العقل جمع قاضي وحنا نقص من يلا أنتها تذكر ما دام دنير يهي إن أي هلان وح العقل أنا أي هلان بنصاو سميني وحنا رجينا نوحي مارك مغلية إن مارك تكسر قيب قاتان تلفوننا أكون كل يده بشيل هرجيسا كتلا عقل محمد ضرور يا عقل إبراهيم عيسى oo kamid ah madax dhaqameedka deegaanka gobolka Sare ayaa iyana sidoo kale ku dheeraaday sida ay qurbo jooga deegaankan uga gaabiyeen horumarka ka socda gobolka Sare iyo waliba deegaamada hoos yimaada gudoomiyaha golaha deegaanka ahna duqa degmada Caynaba Khaliif Ismaaciil Salabaan ayaa ugu horeen ba halkaas kaga dhawaaqay inay ka doorad hoose ahaan xooga saaraan dhismayaasha danta guud isla markaana maanta ay ka qayb qaadanayaan dhismaha dugsigan sare ee loogu magac daray Allah u naxariista Macallin Xirsi Axmed qaybna ay tahay hablo qaybna ay tahay inamo galinka dambe na ay runtii qaadi weeday ardadii iskuulku qaadi waayay waayo waa 6 fasal marka isaga waxaan soo dhagax dhignay in 2 fasal lagu kordhiyo cidii caawinaysa iyo cidii ka qayb qaadatayba waxaan leeyahay ilaahay xisanaad khayr qaba ugu bedelo gudoomiyaha gobolka Sare Ibrahim Xaaji Xasan Cali oo gabagabadii munaasabadani dhagax dhiga ka hadlay ayaa ka dhawaajiyay sida ay waajibka u tahay in laga wada qayb qaato dhismayaasha danta guud sida waxbarashada caafimaadka iyo biyaha sidoo kalena waxa uu qurbo jooga gobolka Sare ku dhiirigeliyay sida ay hadda ugu soo jeedaan horumarinta gobolka Sare oo ma aha iskuul ka madax banaan ka hore kan dambe imka iman doonana ka madax banaan doonaan ma ka madax banaanan maayo insha Allah isna wasaaradda maamulkeeda hoostagaya marka waxaan runtii rajaynaynaa in laga qayb qaato dadweynuhu ka qayb qaadanaya insha Allah waxaan rajaynaynaa jaaliyadaha dibadda inay ka qayb qaataan aad baa loogu dhaliilaya jaaliyadaha dibadda ka qayb qaadashada horumarkan ballaaran ee gobolka ka socda nooc walba leh xagga caafimaadka leh xagga biyaha leh xagga waxa weeye tacliinta leh xagga dhismayaasha dawladda leh xagga baabulka bulshadu ay sabaabulayso dhinac walba leh asi kastaba ha ahaatee dhismaha dugsigan cusub ayaa wuxuu ku soo beegmayaa xilli ay dhawaanihii u dambeeyay gobolka Sare ku soo badanayaan dugsiyada sare isla markaana ay qurbo joogu ka gaabiyeen kaalintii kaga aadanayd ka qayb qaadashada mashaariicda horumarineed ee ka socda gobolka Sare Maxamed Aadan Dirir telefishinka caalamiga ee Somali Channel Caynaba